السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين قالي كسر بعد القناة كنا فضلنا هدي أنا وعصر سبسكرايب نوني حتى هرنا للجوكتنا وكما حسنت للجوك تان كذا نلا نسي جوك إن شاء الله تعالى أدعو سؤال ويننا أصحابتنا نقص بيرتي كل يوم هايدين لنا هاي السؤال بعد قعمة فرن ما شاء الله إما أنتوا حكى هذا لدونا إن شاء الله تعالى مجعشها هذا أما عنق هذا إنه نقدر مدل فيه سؤال سنين ما شاء الله الكهر رخص أصابحان ما شاء الله هاي تود وكجرتيسا maxay ahayd oo noqoto mid caafimaad qabta ma sha Allah calool istaag ama saxarada aysan ku adkaanin intaas inka badan insha Allah taala maanta waxaad uga bogo doontaan videogeena dhameyso insha Allah taala waxa soo qaadanaysaa waxa marka hore tarsiinaysaa ilmahaada manqooc timir waxa la yiraahdo ama casiirka oo timirta laga sameeyo ma sha Allah casiirka timirta laga sameeyo aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay ilmaha intaas oo faa'iidooyin oo soo sheegay iyo kuwa ka badan waad ka heli doontaan marka hore waxa soo qaadanaysaa si aad ugu diyaarinayso insha Allah taala ayaa idin la wadaagaya hooyo kasta oo haysato ilmo ka weyn 6 bilood ugu yaraan ilmahaada markuu 6 bilood soo gaaro ayuu u baahan yahay dareerayaal kale inaad siiso 6 bilood intuu ka yar yahay naaska ayaa isaga filan insha Allah waxa soo qaadanaysaa 3 xabo oo timir ah waad ka dhaqaysaa marka si fiican uga dhaqdo dad baa isdhahay timirta ma la dhaqaa waa la dhaqaa timirta markaad siinayso ilmaha af kaleeto waad ka dhaqaysaa timirta markaad ka dhaqdo waxa soo qaadanaysaa weel nadiif ah galaas ama koob oo dhala ah timirta aad lafaha ka bixinaysaa iyo wasaqada afka korana waad ka goynaysaa weelka ayaa ku shubaysaa kadib waxa soo qaadanaysaa biyo aad soo karkarisay markaad soo qaadato waxa ku shubaysaa timirtii oo kugu jirta weelkii ma sha Allah waa ku daboolaysaa meel ayaad iska dhigaysaa saacadii bar ilaa 2 saac ilaa ay midibka ka bedelmo oo biyaha ilaa ay midibkeedii bedelmaan oo guduud ka noqdaan waad ku dhaafaysaa hadhooti waad ka miiraysaa ma sha Allah masaasadiisa ayaa ugu shubaysaa ama koob midka ku siisato waad siisanaysaa ma sha Allah ilmahadana weight gain ayuu noqon doonaa ama miisaankiisana wuu kori doonaa ilkihiisa ma sha Allah oo dhanka calciumka ay maxay ahayd ka caawin doonto oo ilkihiisu waxay noqon doonaan haduu ilka ku leeyahay kuwa adag ma sha Allah haduusan ilka u lahayn dhaqsi ay u soo baxaan ilkaha ma sha Allah dhammaan uu ku jirta ay u nadiifinayaan waxay sidoo kale to dheefshiidka ay u fududeynayaan oo ilmihiisu wuxuu noqonayaa mid cuntadiisa u furmato ama appetite-ka u furmo ma sha Allah maxay ahayd sidoo kale to saxarada kuma adkaanayso ilmaha 6 bilood markay soo gaaraan raashin ayaa loo bilaabaa raashinkaas mararka qaar kood wuxuu ku sababaa in ilmaha calool istaag ama saxarada ku adkaato marka way ka caawinaysaa casiirka timirta ilmahaada inuu saxarada ku adkaanin dheefshiidkiisa ma sha Allah beerkiisa mindhiciradiisa aad iyo aad ay ugu qayb qaadan doontaa ma sha Allah soo tijaabiyo hooyo kasto uma haysataha soo tijaabiso intaan ubad haysana Allah siiyo ubad baariyaala oo soo degdega insha Allah taala inta haysatana Allah u barakeeyo afwan inta haysana ubad baariyaala Allah siiyo soo dhawaada ayaan leeyahay mar kale aad baa u mahadsantihiin hooyo kasta ha soo tijaabiso insha Allah taala result waad arki doontaan ma sha Allah wax effect ku keenayana ma aha